wariye Liibaan Cismaan Cali oo ka mid warbaahinta ka howlgasha magaalada Hargeysa ayaa xukuumadda Somaliland hawada ka saartay bartiisa gaarka ah ee Facebook waa sida uu hadalka u dhigay wasiirka wasaaradda warfaafinta Somaliland Salabaan Yuusuf Cali Koore oo dhawaan kulan la qaatay agaasimayaasha TV-yada madaxa bannaan ayaa u sheegay in wariye Liibaan uu baahiyay muuqaal jirdil oo sirdoonka Somaliland u geystay Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil sanadii 2008 hay'adda xuquuqul insaanka Somaliland waxay warbixinteedii sanadkan ku sheegtay in dadka aragtidooda u xiran Somaliland ay yihiin 88 qof 29 ka mid waa suxufiyiin halka 59 kale ay yihiin Cabdiraxmaan Yaasiin Abukar British aad iyo aad bad mahadsan tahay kaaga mahad celinayaa fursadan aad siisay iyo wareysigan gaarka ah ee aad la yeelanayso maanta markay ahayd saacadu abaara 3 iyo barkii galabnimo ayaa waxa hawada laga saaray bartii aan ku lahaa baraha bulshada gaar ahaan Facebook waxaan ku lahaa page aan leeyahay way igala socdeen dad aad u fara badan oo Soomaalida oo ku xidhnaa page-kayga sababta ay ugu xidhnaayeen ay ahayd wararka xaqiiqda ku saleysan barnaamijyada xiisaha leh iyo dhacdooyinka markaa ka dhaca deegaanada Soomaalida Facebook-gayga lala wareegay runtii ugama horeyn wariye Facebook-giisa lala wareego oo Somaliland ama deegaanada kale ee Soomaalida degan ugama horeyn ma ahayn wariye ugu horeeyay Facebook-giisa ama bartii baraha bulshada ku isticmaaliyay lagala wareego waxaan kala simanahay wariyaal fara badan oo qaarkood iga magac weyn yihiin in badan warbaahinta ku soo jireen kuwa kale social media aad caan uga ahaa kuwaas ayaa iga horeeyay oo iyaga laftoodana xabsi ku mutaysteen qaarkood imika ay xabsi ugu jiraan qaarkood ilaa hadda ay ka maqan yihiin Facebook-yadoodii kuwaas ayaan runtii anigu Liibaan ma jirtaa cid gaar ah oo aad Facebook-gaagii la xiriirinayso inay hawada ka saareen Soomaalida horta waxay tiraahdaa Cabdiraxmaanow fulixanti ma moogana waxa jirtay shir wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Somaliland mudane Salabaan Yuusuf Cali Koore uu dhawaan la yeeshay agaasimayaasha telefishinada madaxa bannaan rag badan aanu saaxiibnahay oo isku xidhanahay qaarkood wariyaal yihiin qaarkood agaasimayaal yihiin waxay soo gaarsiiyeen in wasiirku markii shirki intaan la bilaabin uu ka dacwaday Facebook-gayga uu sheegay in muuqaal aan soo geliyay oo nin sheekha oo la jirdilay 2008 oo sirdoonka Somaliland markaa ay jirdilayeen oo markaa anigu nin kale ka soo xigtaan soo geliyay wasiirku aniga igu eedeeyay uu yiri ninka wariyaha oo telefishinka sahan ka shaqeeya ayaa Facebook-giisa gaarka u leeyahay soo geliyay isagaana laga wada xigtay anigu waxaan leeyahay sirdoonka Somaliland muuqaal uu leeyahay oo gacanteeda si gaar ah soo galay ma jirin laakiin Facebook-ya kale la soo geliyay social media aad u haystay sida darteed baan u soo geliyay anigu way dhici kartaa inaan ahay wariyihii ugu horeeyay ee ma garanaysay soo geliyay muuqaalka dooyinkii u dambeeyay xukuumadda Somaliland oo garwaday ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxay caado ka dhigatay xariga iyo caga juglaynta warbaahinta Somaliland